kulanti habboon idil ahaantiin baddaawadayaal ku soo dhowaada Halhays Media war hadda soo dhacay ayaa sheegay in Bushaara Baanday lagu dilay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland haddaba yaa dilay Bushaara Baanday barnaamijka aad kaga bogan doontiin ku soo dhowaada barnaamijka Bushaara Cali Baanday oo ah wariye Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyay sida shamaca uga soo ifaysay warbaahinta Soomaalida ee daafaha dunida ayaa waxa ay bilowday barnaamij aan hore loo sameyn oo Soomaalida ku cusub balse adduunka kale ka jira barnaamijkaas oo lagu xog ururinayo dhammaan dadkii magaca masabka ku lahaa guud ahaanba Soomaalida gaar ahaan gudaha Somaliland kaas oo ay Soomaalidu aad ugu riyaaqday kadib markay ka soo muuqdeen ruucadaayo badan oo Soomaalida gaar ahaan kuwa Somaliland oo taariikhdeeda baal dahaba kaga jira dhawaan ayay Bushaara Baanday tagtay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa iyadoo oo safar shaqo u tagtay ayay waraysiyo xasaasi ah waxa ay la yeelatay hogaamiyaasha mucaaradka ee Somaliland sida xisbiga wadan iyo xisbiga kulmiye oo laba qaybood u kala jabay waana Bushaara Baanday ayaa xalay saqdii dhexe guriga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxa uu soo daatay ciidamada sida khaaska u tababaran ee loo yaqaan RRU kuwaas oo tababaray ciidamada Britishka ama wadanka Ingiriiska kadib markay baahisay waraysiyada ay ka qaaday shakhsiyaadka mucaaradka oo uu cuntami waayay madaxtooyada Somaliland Bushaara Cali Baanday ayaa hadda ku taala isbitaalka magaalada Hargeysa iyadoo oo loo geystay jirdil kadib markay ciidamadu u daateen gurigeeda iyagoo ka raadinaya qalabka shaqada ay Bushaara nabarada u geysteen kadib markay ciidamada RRU ay u daateen gurigeeda ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland Bushaara Baanday ayaa haatan la sugayaa inay la hadasho warbaahinta si ay uga sheegto wixii ku dhacay iyo qisada weerarka lagu soo qaaday haddaba daawadayaal see waragtaan Bushaara Baanday oo soo saartay barnaamij cajiib ah oo ay ugu yeedhay Somaliland la wada leeyahay in lagu jirdilo fadlan commentiga noogu reeb haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadna la wadaag waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Cali Daaha salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh